gabadha maqan ee aan lahayn geeri iyo nolol ayaa noqotay halxiraalaha ugu adag ee dadka Soomaaliyeed jawaabta u raadinayaan. sidoo kale magaceedu waa mid ka mid ah magacyada ugu badan ee Soomaalidu ka raadiyaan aaladaha kala duwan ee mareegaha internetka. kiiska Ikraan Tahliil wuxuu u muuqdaa mu'aamarad siyaasadeed oo si aad iyo aad u xeel dheer loo agaasimay. dabcan taasi waa dhab oo waa mu'aamarad si adag looga shaqeeyay. waqti ay noqotona ugu dambeyn waxay salka la geli doontaa siyaasiyiin mug iyo miisaan leh. ma jirto qof ama koox si cad u sheegi karta sababta ama sababaha loo beegsaday Ikraan Tahliil. waase jirtaa arrimo u muuqda tuhun kuwaasoo tilmaamaya sababa aan caddayn buuxda haysan macquulsa ay noqon karto in Ikraan Tahliil Faarax loo bartilmaamaysaday. waxay ahayd gabadh da'yar ku jirta bilowgii hanaqaadka iyo asaaska nolosha, kuna haminaysay inay heer sare ka gaarto waayaha nololeed oo u harsan cimrigeeda. Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda Muqdisho, waxay martigelisay mashaqooyin badan oo ay naftooda ku waayeen siyaabo kala duwan Soomaali badan. dadka qaarkii oo aan la xiriirin karno aragti gaabni waxay diidaan in wax weyn laga dhigo kiiska Ikraan, iyagoo ku doodaya in la buunbuuninayo lagana badbadinayo. balse xaalku sidaas maahan. maxaa yeelay Ikraan nolol iyo geeri midna laguma hayo. maqnaanshiyaheeduna looma magac bixin karo, meelna loma saari karo. waxaa meeshii u sarreysay gaaray miisaanka kiiska Ikraan kadib markii uu agaasimaha hore ee NISA magacaabay dhowr ruux oo uu ku eedeeyay inay shirqooleen dilkeedana ka dambeeyeen. eedaynta uu jeediyey Fahad Yaasiin waxay urkutaalla iyo uruga ku sii riday ehelkii Ikraan Tahliil. haddaan si kale u eegnana waxay kor u qaaday xajmiga uu leeyahay kiiska gabadhaas weli raq iyo ruux lala-yahay. si aan uga fogaado inaan farageliyo garaadka adiga i daawanaya iyo Soomaalida kaleba, adigoon degdegin isku day inaad jawaab u hesho su'aalahan soo socda. su'aasha koowaad, Ikraan Tahliil ma waxay ku maqan tahay mu'aamarad dahsoon oo si gaara loogu maleegay iyada, mise waxay sababsatay inay ka mid noqoto shaqaalaha sarsare ee sirdoonka Soomaaliyeed? su'aasha labaad, gabadhan yari ma waxay haysay sir culus oo dhinacyo kala duwan muhiimad gaar ah u leh, taasoo keeni karta in kooxda ay ku maqan tahay doorbidda dhimashadeeda si ay u duugaan sirta ay ku malaynayaan inay hayso? su'aasha saddexaad, Ikraan Tahliil nafteeda ma waxay ku weysay ama ilaa iyo hadda loo la'yahay colaadda baahsan ee ka dhex jirta ra'iisul wasaaraha xilka kasii degaya iyo madaxii hore ee NISA? su'aalahani waa kuwo jawaabo waafi u baahan ee hafududaysan, waayo qof naga mid ah oo bilaa micno iyo weliba raad la'aan dhinta waxay ka dhigan tahay inaan nolosha inteena hartay ay tani nagu dhici karto. haddana waxayna la wadaagayaa qaybo ka mid ah caddaymo iyo weliba su'aalo iyo jawaabo la isweydaarsaday oo dhex maray qoyskii Ikraan Tahliil Faarax ay ka dhalatay iyo qaybo ka mid ah mas'uuliyiinta ugu sarsare ee NISA, kuwaasoo ka hadlay baaritaanna ku sameeyey kiiska Ikraan Tahliil. bal aan isla daawanno natiijo baariseed oo hordhac ah. tixraac xaashida taliya kursimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee la qoray 3 bishii 11 2021 kuna saabsanayd gacansiin baarista baariseedka Ikraan Tahliil Faarax, iyagoo fulinaya amarkii ra'iisul wasaaraha ee 26 bishii 10 2021 uu ku amray xafiiska xeeraalinta iyo hay-adda NISA in ay ka wada shaqeeyaan baarista kiiska Ikraan Tahliil si cadaalad loo gaaro, iyagoo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo wareejiyay galbaariseed ay horay u sameysay hay-adda NISA, sidoo kalena ay ku soo wargelisay in ay diyaar u tahay ku shaqaynta iyo la shaqaynta amarada xafiiska xeeraalinta si waafaqsan sharciga dalka. guddiga baarista oo ka kooban xeerlaaliyaha guud, ku-xigeenkiisa iyo sarkaal ka socda nabad sugidda waxay bilaabeen baaristii, iyagoo dib u akhrin ku sameeyey galdacwadeedkii la soo gudbiyey. waxayna go'aamiyeen in dib loo waraysto dhammaan dadkii ay cabashadu ka taallay xafiiska. guddigu
waxay wareysteen isla markaana cadeymo dib uga wada qoreen cabdiqani maxamed cismaan wadnaqabad iyo asma yuusuf cumar kuwaasoo ka mid ahaa saraakiisha hoose nisa ee cabashada laga soo gudbiyey sidoo kale waxaan cadeymo ka qornay taliya kusimaha hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka gaashaanla sare yaasiin cabdulaahi maxamuud yaasiin farey fahad yaasiin xaaji daahir agaasimihii hore ee hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyo cabdulaahi aadan kulane madaxii hore ee shaqada iyo shaqaalaha nisa kuwaasoo mas-uul ka ahaa xilligaas hay-adda nisa guddiga baaristu wuxuu baaris ku tegey xafiiska taliska hay-adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka iyagoo u kuurgalay goobihii ay ku xirnaayeen kaamirooyinka qarsoon ee CCTV sidoo kale wuxuu booqday xafiiska la socodka kaamirooyinka sidaas darteed guddiga baarista kiiska waxaa u soo caddaatay in hay-adda sirdoonka nisa ay si hufan ula shaqaysay xafiiska xeerlaalinta ciidamada qalabka sida iyo guddigii baarayay galbaariseedka ikraam tahliil faarax 2 intii aan baarista kiiska ku guda jirnay guddiga uma soo bixin wax caddayn ah haba yaraatee oo muujinaya in maqanad ikraam tahliil faarax ay ku maqan tahay gacmaha saraakiisha hay-adda nisa 3 guddigu wuxuu la wareegay oo uu hayaa galbaariseedkii ay soo gudbisay hay-adda sirdoonka nabad sugidda qaranka nisa oo sheegaya in ikraam tahliil faarax ay afduubteen al-shabaab isla markaana ay dileen haddaba guddiga baarista kiiska ikraam tahliil faarax wuxuu ka codsanayaa cid walba oo warbixin ama xog ka haysa kiiska maqanada ay u soo gudbiyaan guddiga baarista si loo gaaro xaqiiq dhammaystiran oo lagu horgeyn karo cadaaladda ciddii dhibkaas geysatay bismillaahi raxmaan raxiim jawaab celin ku saabsan go'aan baariseedka xeeraaliya buule kamey uu ka aqriyey TV-ga afka dowladda ku hadla markii taariikhdu ay ahayd 22-ka bishii 11aad sanadkan ay ku jiraan 2021 qoyska muwaadin ikraam tahliil faarax waxay halkan uga jawaabayaan war xaqiiqada ka fog oo ka soo baxay xeeraaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida 22 bishii November sanadkan 2021 kaasoo ciwaankiisu ahaa baaris hordhac ah oo ku saabsanayd kiiska ikraam tahliil faarax warbixin baariseedka uu xeeraaliyaha buule kamey ka sheegay warbaahinta waxay khilaafsan tahay habraacyada loo maro baarista faldambiyeedyada muwaadin ikraam tahliil faarax waxaa gurigeeda oo ku yaala xarunta hay-adda niisa dhexdeeda ka qaaday baabuur uu leeyahay eedeysane kulana jiis habeenkii ay taariikhdu ahayd 26 bisha Juun 2021 markaas ayaana cid ugu wardambeysay waxaa xusid mudan in bartamihii bishii July hooyo qaali maxamuud guhaad oo garabkeyga midig fadhida iyo xubno qoyska ka mid ah ay kulan la yeesheen eedeysane fahad yaasiin oo xilligaas ahaa agaasimaha hay-adda niisa waxaana uu qabsaday muddo 2 maalin ah 2 maalin gudaheed in uu gabadha ku keeni doono taas oo caddeyn u ah in ikraan ay ku maqan tahay gacanta hay-adda niisa taariikhdu markay ahayd 24 bishii July 2021 hooyo qaali maxamuud guhaad ayaa dacwad ay u gudbisay maxkamadda ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd 7 bishii 9 September 2021 maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay qabatay gal dacwadeed ay gudbiyeen qoyska reer tahliil faarax kaasoo eedeysanayaal ay ka ahaayeen dadka kale ah 1 fahad yaasiin daahir 2 yaasiin cabdulaahi maxamuud oo ku magac dheer yaasiin farey 3 cabdulaahi kulan oo loo yaqaano kulana jiis 4 cabdiqani dhiirane oo loo yaqaano wadnaqabad taariikhdu markay ahayd 2 bishii September sanadka 2021 waxay warbaahinta ku hadashay afka dowladda lagu baahiyay qoraal ka soo baxay hay-adda niisa oo ciwaan looga dhigay tacsi kaasoo niisa ay ku sheegtay in ikraam tahliil ay dileen ururka al-shabaab hase ahaatee wax ka yar 24 saac
ayay al-shabaab ku beeniyeen ku lug lahaanshaha kiiska. xeer ilaalintu waxay si cad ugu sheegeen qoyska iyo qareenkaba inaysan u suurtoobin baarista kiiska sababo la xidhiidha in saraakiisha niisa ee eedeysanayaasha ka ah ay is-hortaag ku sameeyeen baaristii socotay, iyaga oo caddeeyey in xaaladda taagani darteed aysan saamaxayn in baarista la sii wado. waxaa nasiib darro ah in ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble oo horey u ballan qaaday in kiiskan si dhaba loo baari doono, qoyskana ay heli doonaan cadaalad, in uu tuhmanayaashii niise ee loo haystay kiiskan inuu iyaga gacanta u geliyey isla kiiskii ay eedeysanayaasha ka ahaayeen, sida ku cad bayaanka uu bixiyey ra-iisul wasaaraha 26 Oktoobar 2021 mar uu booqday taliska hay-adda niisa, taas oo ay daba socotay warqad ka soo baxday niisa 3 bishii 11 waa Noofembar sanadkan 2021 oo uu qoray eedeysana Yaasiin Faray oo uu u diray xeeraaliye Buulakamey laftiisa, kuna sheegtay in Yaasiin Faray uu wareejiyey galbaariseed oo isagu isku soo baaray. haddaba qoyska Ikraan Tahliil ma aqbalin warbixinta uu shaaciyey xeeraaliye Buulakamey, mana ahan mid sharciga waafaqsan. xeeraaliyaha dembi kama baabi'in karo cid dembi leh, mana laha awood uu ku xiro kiis ka furan maxkamad sharci ah. maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay noo caddaysay in dacwadda Ikraan Tahliil aan weli la qaadin, sidaas darteedna kiiska weli wuxuu ka furan yahay maxkamadda ciidamada qalabka sida. waxaan xog ogaal ku haynaa in xeer ilaaliye Buulakamey uu hadlay kadib markii uu eedeysanay Yaasiin Faray baabuurkiisa ku qaaday kuna geeyey xarunta niisa, kadibna muuqaal looga dhex duubay xarunta niisla isla maalinkii 21 Noofembar ee uu hadlay xeer ilaaliyaha. muuqaalkaas oo laga sii daayay warbaahinta afka dowladda ku hadasha sida la wada og yahayna waxa ujeedku ahaa in loo gogol xaaro kursiga xildhibaannimo ee uu eedeysanay Yaasiin Faray oo maalin kadib ugu safray magaalada Dhuusamareeb. tiirarka dowladnimada waxaa saldhig u ah cadaaladda. haddii cadaaladdu ay waayaan dadweynaha waxay ku qasbanaan doonaan inay gacmahooda ku raadsadaan cadaalad ay ku qanacsan yihiin. xaq dadkii lahaa ay daba joogaan marna ma lumo. qoyska Ikraan Tahliil waxaa ka go'an cadaalad u helidda kiiskan wax kasta iyo waqti kasta oo ay ku qaadato.